dhawaan ayay ahayd markii xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ay mooshin ka dhan ah madaxweynaha ay soo diyaariyeen isla markaana ay ku doonayeen in ay xilka kaga qaadaan madaxweynaha iyadoo ay taasi jirto ayaan waxaan mikrofoonka la dhaxmaray dadka ku nool dalka Koonfur Afrika isla markaana aan weydiiyay ra'yigooda ku aadan bal waxa ay ka qabaan xildhibaanada oo mooshin ka dhan ah madaxweynaha diyaarinayo dadweynahani ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay magacayga waxa la yiraahdaa Cabdullaahi Saciid waxaan ku noolahay Cape Town sidaa daraadeed waxaan qabaa in madaxweynaha la siiyo chance waqtigan maanta la joogo waayo waxa lagu jiraa waqtigan xaalad adag waqti wax la kala bedelo nin kursi laga qaado nin kale ma joogno macna ma sameynayso run ahaantii baarlamaanka hadda waxay ku qaylaan meesha ma taalaba sababtoo ah maalin horaatay waxay dhaheen ra'iisul wasaariyaha xumaaday meeshay ka saareen marka taas waxay u dhigantaa inay qofkay rabaan ay keeni karaan baarlamaanku qofkay rabaan ay meesha ka tuuri karaan marka anigu waxaan dhihi lahaa yaana waxaas la isku qabsanin qof kasta tiisa lagu daayo hana looga dambeeyo jaanisna qof kasta hala siiyo ilaahay wuxuu leeyahay adiicu Allah wa adiicu rasuula wa ul amri dadku inay ul amri noqdaan oo madaxweynaha jaaniskiisa la siiyo dadka ku dhaqan dalkan Koonfur Afrika sida ay u arkaan mooshinka dhawaan ee qaar kamid ah xildhibaanada ay ka soo jeediyeen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa ayna dadku intooda badan ay hoosta ka xariiqeen in ay muhiim tahay in waqti la siiyo madaxweynaha si loo dardargeliyo howlaha iyo waliba in dadaal ka soconaya dalkeena Soomaaliya iminka waxa ay la taagan Sheekh Cabdirashiid Caafi oo kamid ah aqoon-yahanada Soomaaliyeed ee ku nool dalkan Koonfur Afrika isla markaana garyaqaana Sheekh Cabdirashiid bal ka waran ra'yigaada ku aadan mooshinka dhawaan xildhibaanada ay ka keeneen Xasan Sheekh Maxamuud ra'yigii ku aadan ani shakhsiyan kulli waxaan qabaa madaxweynaha in la xisaabtamo oo wuxuu dastuurku u qorayo lagu xisaabtamo oo baarlamaanka iyo hay'adaha sharciga ah lagu xisaabtamo madaxweynaha taas waxay keenaysaa marka in oo mas'uuliyad iyo si sax madaxweynaha uu shaqeeyo laakiin marxaladan hadda maanta lagu jiro meesha Soomaaliya ay marayso maanta hadii la fiiriyo mooshinkan waqtigiisa lama keenin oo ka soo hormaray in dib loo dhigo ama laga fikiro oo si sax baarlamaanka uga soo fikiro yaan qabaa mooshinkaas waqtigiisii kuma soo aadin macnaheedu waa tahay hadii dhalinyaro ay u arkeen baarlamaanka maadaama ay sharci dejiyaashii wadanka ay yihiin in xilka laga qaado madaxweynaha oo la bedelo maxaad ku diidaysaa madaxweynaha waa la bedeli karaa laakiin waa in si sax oo dastuur oo sharci loo bedelo haddaad akhriso dastuurka Soomaaliya maadada 9aad waxay qoraysaa qaabkii loo bedeli lahaa madaxweynaha wixii lagu soo eedeeyay inuu khiyaano qaran uu sameeyo oo kaleento in oo baarlamaanka oo dhan uu isku raaco oo guddoon mooshin si sax loo soo maro waxaan ku talin lahaa xildhibaanada in dastuurka marka hore akhriyaan si sharci madaxweynaha looga codsado inuu iscasilo oo xilka looga qaado macnaheedu ku talin lahaa waa gartay madaxweynaha hadaladiisa waxa kamid ah in uu mar walba ku faraxsan yahay in isbedel ay dhacaan miyaysa ku muuqan inuu isbedel meesha ka dhaco oo madaxweynaha maadaama dhaliilo badan loo soo jeediyay oo ay kamid tahay dhibaatadii dhawaan ka dhacday Kenya oo madaxweynaha ilaa wali uusan ka hadlin in si dhaqsi ah xilka looga qaado miyaysa taas u furnayn xildhibaanada si dhaqsi ah xilka oo qaadi karaan dastuurkana qoraayo laakiin waxa weeyo madaxweynaha hadda 2 sano yuu hayaa xilka 2 sano markaad akhriso wixii qabsoomay iyo waxa dhiman waxa qabsoomay aad u fara badan yihiin heer waxa la gaaray wasiir intii loo yeero oo baarlamaanka Soomaaliya uu yeero la xisaabtamo oo dhaw saxaafadda laga bixiyo meesha oo si sax oo xor oo dimuqraadi ah loo xisaabtamo wasiirada heerkaas la gaaray xamarka ma jirin Soomaaliya kama jirin Xasan Kaafi Maxamed Shire telefishinka caalamiga Home Cable magaalada Cape Town